gudoomiyaha xisbiga maxaafadka ee kulmiye oo ay hareere fadhiyeen qaar ka mid ah hoggaanka sare ee xisbigaasi ayaa warbaahinta u sharxay halka uu marayo u diyaar garowga shirka golaha dhexe ee xisbigaasi oo dhawaan la filayo inuu ka qabsoomo magaalada Hargeysa. Gudoomiye Muuse oo amuurahaasi ka hadlaya waxa uu sheegay diyaar garowgiisii boqolkiiba dhowr iyo 80 waa dhay waxa isdiiwaan galiyay oo qaatay kaararkii 310 tirada guudna waa 400 waxaan faraynaa laba saxiix ee soo socda in ay dhamaadaan kaar qaadashada xubnaha golaha dhexe. talaabada ku xigtayna waxa weeye in la diyaariyo venue-gii shirka lagu qaban lahaa iyaduna waa diyaar. saddex ajandayaashii shirka laga wada hadli lahaa iyaguna waa diyaar. waxa aynu su'aalaha haddii alla yiraahdo waa bisha 10keeda 7 markaa hornimo oo xubnaha golaha dhexe oo uu ka yahay madaxweynuhu ay soo diyaariyaan howlka shirka. inta ay hawshan socotay waa maqasheen marbuuq baa jiray, murashaxiin naga cawday baa jiray. waxa la yiri shirka nin baa murashaxa oo gudoomiye ah oo isagu maaragtay meeshii kaliya maamulanaya waa la isaga yimid. murashaxiinta way yimaadeen habkii hawsha u socotay ayay eegeen ammaan bay ka bixiyeen. murashaxiinta halka timid ee aad ula dhacday hawsha oo socoto ee ka marxaati furay in hawsha la hayo transparent tahay oo dadka u dhaxayso waxa kamid ahaa Abdulcasiis Soomaali murashaxiinta kamid waana ku mahadsanyahay. gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi shirkiisa jaraa'id waxa uu kaga jawaabay maalmihii u dambeeyay loo soo jeedinayay oo la xiriiray in madaxweynaha Soomaaliland uu taabacay musharaxnimadiisa. isagoo arintaasi ka jawaabayana waxa uu yiri xisbiga cid baa loo xiray horta golihii lama tagin isku dooranayay meel madaxweynuhu ka yiri cid baan taageerayaa oo cid gaar ah ayaan wataana fagaara iyo faqbid ku helan maqan. anigana wuxuu dhigtay ii saaray iyo wuxuu ii sheegay midna ma jiro. horta waa ilaahay mahadi haddii ragga qaarkii u leeyahay maanta madaxweynaha adeeg ku wata 5 sano halka fadhinooyo noo qolay la turturiyaan wahay marka haddii iyaga ay xagga noogu soo riixaan alxamdulillah ilaahay ka dhameeyo waa ku ducaysan inuu taageero madaxweynaha haddaan helayno ducaawan fooxan inta ugu ridaa haddaan helayno laakiin wax alle waxna soo gaaray oo dareen ma jiro. marka loo fiirsado wasiirada shirayis casi waxa ay yiraahdeen qaarkood madaxweynuhu cid u taageeray dadka waxaan u sheegaynaa artahay iyaga markii la soo weydiiyay waxa nagu oran xambaan ku maqal xanna la iskuma eedayo taana taasoo kale xisbiga waa dimuqraadi waa lagu tartamayaa in lagu tartamana golahay hore lagu tartami jiray waa laga adkaan jiray mar waa ku guuleysan jiray wax ceeba ma laha fagaaraha tartanku qolkana ay taan waa laga adkaaday inta xisbiga warbiga soo jeesay aan aayir sudii sharaf mooyo xumana kama qaaday saaxiibadiisa casay waa saaxiibaday rag badan oo kulmiye soo asaasay ku jira waa ixtiraamayna waxaan u qabanaynahay qoys kala carooday aniga waxa iyagu aad u duulay niman maanta is eedeynaya farta soo fiiqaymay annaga rag wadaalaynoo yihiin galaay kama filayno dalka inay xumeynayaan ka fili maayo. Badri Koosar Maxamuud telefishinka caalamiga Star Hargeysa.